hadafkeeguna muxuu yahay halkeena u soconaa doorashadaana yaa tartamayo waxa doorasho anaka u soconaa in aan waxyaalihi aan soo qabanay xogaa wax ku darno iyo inaan dhisno xarun ganacsiga ama mall suuq Soomaalidu ay leeyihiin af Ingiriiska waxa lagu dhahaa cooperative af Soomaaliga waxa la dhihi karaa hanti wadaag meel dadku ganacsatadu weeye ku leeyihiin dad baa markaa waxay dhahaan waa been ma la sameyn karo laakiin waxa idin sheegaya sida jidadka sida u dhisnay oo opportunity tarka insha Allah u furayno oo boosaaso u mataaneynay oo alaab aan ugu dirnay baan u dhisi doonaa moolkaas insha Allah waayo khibradii waa u leenahay waana sameyn karnaa markii aan iclaaminay moolka inaan dhisayno dhismaha moolkan wuxuu ka yimid markii baaritaan aan sameynay degmadeenna waxa ku yaala mool 24 waxa noo yimid dadkii moolka 24 ka shaqaysanayay waxaan ku qabanay shirar masaajidka moolka 24 dadku waxay yiraahdeen ma haysana musqulo waxay yiraahdeen maxaa la dhahaa hal musqulo dumarha ku taalay meeshaas oo kumanaan qof ay yimaadaan waxay yiraahdeen parking kuma fiicno waxay yiraahdeen masaajidka kor hal musqul laba musqul baa ku taalo lagu weysaysto raguna isticmaalaan dadka naafada ah oo moolka yimaada kor ma aadi karaan elevator kuma shaqeeyo abashooyinkaas 2014 inay timid waan maxaa la dhahaa waan ganaxnay alxamdulillah waa la sameeyay maxaa la parkingkii 6 musqulood dumar bay sameeyeen 8 musqulood rag baa la sameeyay taas kama imaan bariyo qasab bay ku timid waana ku dhibnay waana cadaadinay haddeerna markaan niri mool baa dhisayna cilaaminay bay nimanka sabriga la dhaw waxay yiraahdeen moolka ma la dhisi karo waa been ma la dhisi karo abdi warsamana waa la tartamaynaa oo dad baan soo gelinaynaa la tartamo marka ogaada doorashadan waxa weeye waa afti waa referendum ma waxa rabnaa in annaka nolo ku cadaadiyo nolo kugu hanjabo lacagteena waxaan rabnaa in suuqyo oo aan lahayn haddii waxta dab ka dhaco maanta 24ka waxaan ognahay in tragedy ka dhici doonto marka waxaan u baahanahay inaan hor u socono maanta siyaasadda waxa leedahay xildhibaan oo state-ka waxa leedahay school board members waxa leedahay council members maanta ma la idin turjumo wadan afkiina ku hadlo ayaa idin hadlo ma aha marka ganacsiga in lidinku cadaadiyo niman shakhsiyaad moolal yar ay leeyihiin oo hatta ajnabi ah inay dadkeen u caga jugleeyaan marka doorashadu been yaa lidii sheegin inda sarcaad yaa lidii sameyn hatta waxa maqlaynaa mool 24 actiisa xaflad lagu qabana sida odayaasha looga soo qaado moolka oo la geeyo oo dadka loo sacabtumo doorashadan waxay ka dhaxaysaa abdi warsame oo aataqaaniin iyo nimanka sabriiska oo moolasha leh ama abdi warsame guuleysanayo ama sabriiska guuleysanayo ama moolkeena dhisayna ama ma dhisayno intaas way doorashada haddeer waxaan idinka rabnaa marka waxaan markii ka codsanaynaa waan ku soo gabagabeynaa insha Allah maxaa idinka rabnaa idinku maxaa kaalintiinu maxay tahay lacag moolka lagu dhiso hadda mid ka codsanayno taas meel aan dhigno kaalintiinu waxay tahay codkiinaan u baahanahay noogu hilisin intiina degmada lixaad degan inta aan deganayn Soomaaliya noo soo duceeya noo imaado campaign-ka ka soo qayb gala noo soo volunteer gareeya dadka in la daad gurayaan u baahanahay noo soo baxa